shaaha iiraan markuu yimid khumeyni uu inqilaab sameeyey adduunyada caalam alcarabi wax badan baa iska bedelay waxa iska bedelay wuxuu noqday khumeyni oo leh anuu shareecada islaamkaan ku xukumaya oo markaa criticismna u soo jeediyey dadka sacuudigu wuxuu odhan jiray shareecada islaamkaan ku xukuma markaa criticisna u soo jeediyey sacuudigii inaanu shareecada ku xukumin ee uu dabadhilif maraykana iska yahay oo maraykanka u shaqeeyo caynkaasoo saasoo waxaasu galay markaa tii waxay noqotay iska caabin markaa in la sameeyo iska caabinta waxay noqotay inay is arkaan maxamed cabdiwahaab hore intaanu khumeyniba u imanin dadka qaar baa ku dacaydeyn jiray inuu nin maxaanku dhahdaayey hanfar la odhan jiray uu tababaray oo maxaanku dhahay mukhaabaraadka ingiriiska ahaa 1700 something uu tababaray waxaan ka dhaadhiciyey uu yahay camiil lagu dhex abuuray muslimiinta ayaa dadka qaar ka arka allahu aclam laakiin marka dambe way iska cadday in ay wahaabiyadii iyo maraykankii isla falgaleen waayo waxaa la doonayay in la badbaadiyo saliidda khaliijka oo laga badbaadiyo maxay khumeyni laga badbaadiyo khumeyni oo yidhi markaa waxaan doonayaa shareecadda islaamka inaan ku dabaqo si ka wanaagsan sidii sacuudiga caynkan ugu dabaqay hadda sacuudiga iyo shaahii eeraan oo khumeyni ka horreeyey saaxiib bay ahaayeen sacuudiga khaliijka iyo shaahii eeraan saaxiib bay ahaayeen oo hadda shiici baanu ahaa laakiin dee muu odhan shareecad baan ku xukumay wax kale aan keenaya khumeyni markuu shareecadii wax baan ku xukumay waa ninkan waala inaga qabta markaa deedna dagaal baa la galay dagaalkaa waxaa injineer gareeyey maxaan ku dhahday maraykanka CIA-da maraykanka iyo maxaan ku dhahday iyo sacuudi arabiya waxaana la bilaabay in caalam alislaami laga gaadho dooda noocaasa markaa waxaa la alifay intaasoo kitaab oo yaryar oo wahaabiyadda oo qurqurux badan oo kalar lahoo cusub oo markaa amba wax lagu shiray geelayo amba dadka la qabanayo oo lagu bahalaynayo oo lagu kaanteeyo markaa shabaab fara badan oo adduunka ka baxay biil baa la siinayay raabidat alcaalam alislaami iyaduna lacag bay bixinaysay daar alifta meel la yidhaahdo oo iftaha sacuudigana lacag buu bixinayay dadka ugu badanee ka faa'iidaysta waxay ahaayeen afghanistaanida iyo soomaalida iyo yamanta dadka masaakiinta ahee aan waxba haysan saddexdaa daleen kuu sheegay waa fuqara olmos iyaga ayaa markaa masaariif inta caruurta la qaado xaggaa la geeyo iskuuladooda jaamacadooda wax ku soo bartaan ayaa deedna mataqaanaa lacag joogto ah la siinayay oo la odhanayay fidiya manhajka wahaabiga oo looga jeedo marka dambe walaa inay helaan dad raacsan iyaga oo mataqaanaa maxaan ku u hiiliya oo uga hiiliya masaa'ibka iman dooniya hadday dowladda timaadiyo eeraantan iyo xataa ikhwaan muslimiinka laftooda iyo waxaasoo dhan ba uga hiiliya marka ikhwaan muslimiinkuna iyaguna jamaal bay ka soo baxsadeen khaliijkay joogaan khaliijka ha joogaane way isdaad raacinayaan wahaabiyadii oo waxay isku daad raacinayaan dee waa nin dictora waa nin profesaradii masar joogay ikhwaan muslimiinka oo dhani sacuudiga khaliij ka yimaadeen markay yimaadeen waxay kaliftay inay wahaabiyadda la saaxiibaan oo ay siday u arkayaan u arkaan oo ay iskala noolaadaan iyaga oo aanay iyagoo arkay inay hadda qaldan yihiin haddana inaanay qaladkooda aanay muujin iyaguna dormant state iska aamusan ayay markaa galeen wahaabiyadii baa markaa xoog u fiday markay xoog u fiday dee ilaa nigeria ilaa boko xaraam ilaa meel walba ilaa afghanistan meel walba way gaadhay yay la dagaalamaysaa markaad eegto kow waxaa lala dagaalamayaa un dalalka muslimiinta yeman waa la baabiyey nin la yidhaahdo maxaan ku dhahdaayey ay tababareen iyagu soo garamays alwaadici soo garamays la odhan jiray kaasaa muqbil alwaadici ninkaasaa mataqaanaa lagu tababaray sacuudi arabiya waa la keenay waxaa lagu saanigareeyey oo lagu wajahay xuutiyiinta iyo oo iyagu aan shiica rasmiya ahayn laakiin iska ah yani ka fog wahaabiyaddan iyo xaggan oo aan shiicana ahayna u dhexeeya labadii ayaa lagu wajahay oo la nimankaa ka qabta meesha yaanay cid kale soo gelin deedna dagaalkii halkaa ka dhacay ee ka dhacay maxaan ku dhahay wahaabiyadii muqbil alwaadici hogaaminayay iyo xuutiyiinta waa ka ilaa maanta socda waa taa yabani ku baabaaday innaga waxay noo soo direen itixaadku wuxuu ahaa totally wax ka yimid maxaan ku dhahay sacuudi arabiya iyo mukhaabaraadka markaa maraykanka oo lagu baabiinayay kow qolo markaa ikhwaan muslimiin oo shaqaynayay in laga masaxa meesha iyaga iyo in maxaan ku dhahay dhallinyaradaa soomaaliyeed la geeyo dagaalka afghanistan waayo dagaalkii afghanistanna markaa wuu bilaabmay khumeyni markaasuu isaguna bilaabmay soo garamaysid markaa dhallinyaradaa in la helo oo dhallinyarada markaa dagaalka halkaa la geeyo dagaalka waxaa billions ku kharash garaynaya maraykanka iyo sacuudiga nin kastoo taga mushaharkiisa lacagtiisa wixiisa waa la siinay dhallinyaro jaamacada aynu u diro maraykan iyo meelo joogay ayaa dagaalkii afghanistan iyagoo dhex ku jireen la arkay markaa iyagu waaba qiraal maba dafirsanaa maanta maraykankii waxa aynu sheegayno oo dhan inay isticmaaleen qiraal bay ku yihiin waxaad ka heli kartaa oo maalin dhaweyta soo dhigay amaantadan aban soo dhigay facebooka soo dhigay waxaad ka heli kartaa iyadoo hadlayso gabadhii Clinton wasiir khaarijigii maxaan ku dhahay maraykanku
clinton xaaskiisii waa tii obama u ahayd maxaan ku dhahay secretary-ga arrimaha dibadda u ah. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. iyadii baa hadlaysaa innaga abuurray bay leedahay qaacidaya ISIS iyo waxaan u dhanba ya innagu markaynu abuurrayna innagii bay dagaal inagu qaadeen iyagii baynu imika la dagaalamayna nimankan imika la dagaalamaynaa waa nimankii inagu aynu abuurray markii ya Rex Tillerson nin la yidhahdo isaguna Obama u ahaa maxaan ku dhahay Trump u ahaa ya mar wasiirka daakhili secretary of maxaan ku dhahay foreign affairs ka qaabilsan isaguna uu ka hadlaya. The center has a number of elements to attack extremism around the world. One of the elements that we are visiting with them about, and they have already taken step, the Saudis, is to publish new textbooks that go into the schools that are in the mosque around the world. These textbooks are to replace textbooks that are out there today that do advocate extreme Wahhabism viewpoints around the justification for violence. We've asked that they not just publish the new textbooks, we've asked that they retrieve the existing textbooks so we get those back. wuxuu leeyahay Sacuudiga waanu la hadalay waxaanu ku bahashan wahaabiyada ka joojiyay caalamka islaam iyo dalkiinaba kutubta aad ka qorteen wahaabiyada ee Sacuudi Arabiya lagu akhristo iyo kuwa aad dalalka adduunka geyseen ka soo ururiya idinku oo kuwa lid ku ah kuwa daabaca oo fidiya oo xagga geeya fikradii iyagii bay ka hortimid ma inta caalamka islaamiga oo dhan burburisay ayay iyagiina markii dambe dawlad talaabo ninkii doona uma taqaana markaa samaysanay marka dunidiiba khalkhal ayay bahashi gelisay dabkii iyagu abuur waana qiraal kii CIA-da ku jira oo hadlaya waxa hadlaya Congress-kii Mareykanka oo markaa maxaan ku raahday dabagal arrinta ku sameeyay oo ragga aan ku sheegay intuu yeeray su'aalo weydiinaya oo su'aalihiisa aan ku sheegay dhamaantood kaga jawaabaya mar haddii Mareykanka isagu fikrada wariyo sacuudigii da amar baa la siiyey amarkii waa la furaya waa la sugayaa inuu fulo amarkii weliba amarku ma aha xisbi gaar inuu wato labada xisbiba dee gabadha Clinton waa dimuqraadi moogta Tillerson kan aan kuu sheegaa waa Republican ya amar dawladda sacuudiga markuu bahalkii tarmeesha tagay uu la socday awaamirta la siiyey sacuudiga ka mid ahay ninkan la yiraahdo maxaan ku raayay marka meesha haystay wali alcaadigii uu qaaday tallaabo oo dawladda badan oo dee waxaankaasi oo xidhay way jiraan arrintii uu ka soo horjeeda marka garan mayno ilaa xadka ay socon doonto laakiin waxaan halkan message uga diraya dhalinyaradii 40 sanadood aan ku qaylinayna eenu lahayn war waxaan Mareykan iyo Sacuudi baa wada wahaabiyada war dalka ka daaya war fasahaadinina war dadka ha gaalaysiinina ee keentay itixaad ee keentay ictisaam ee keentay shabaab imika dagaalamaya ya ee adduunka kana Boko Haram iyo ISIS iyo maxaan ku raahday Taliban iyo balaayo keentay ya waxaan ka daaya dalka marka maanta inay gartaan iyagii oo toobad keenaan waa dhalinyaro badidoodu waa dhalinyaro maskaxda laga xaday rag waaweyn baa dambiga leh ragga waaweynaha toobad keenaan oo hay yiraahdaan qalad baanu samaynay ilaahay dartii waanu ka soo noqon 40 sano ku qaylinay waxaan bilaabay 1981 baan bilaabay ilaa maalinka maanta waan qaylinay dibadda haddaan joogiyo gudaha haddaan joogaa Sacuudi Arabiya 20 sano ku noolaa waan dhalinyarada Sacuudiga oo doodi jiray sidaan aanu wada hadli jiray culimadooda waan doodi jiray sidaan aanu sheegay maanu sheegi jiray war waxaan Mareykan baa idin war waxaan u qalday war waxaan ka baxa war waxaan naga daaya Afghanistanna ruushadu haysto dee Suuriya 100 meelood oo kale uu ka taliyaa isaga iska tagay dhulka ka qaadi baa ka daaya ma jiraan cid markii arrimaha soo baxeen Mareykanka ka hadlayay Sacuudiga talaabooyin ka qaaday oo awal fikrada kugu diidanaa imika qaatay amba inta dib u doodeen ما تكبر باكو جرا تكبر كل دين الإسلام كم ملك بجرا كبرياء يا خير الخضائين التواب كل ابن آدم خضاء وحديث النبي عليه الصلاة والسلام قف كستو ابن آدم يقول قلدمي كرا وقلدما وخير الخضائين كوا قلدمي انت دي عن قلدمي اوكي لكن كوا قلدمي خير الخضائين التوابون كوا ugu khayr badan waa kuwa ka soo noqda marka maanta waxa looga fadhiyaa culimada waaweyn ee itaxaadka keentay
اعتصامka keentay ee wahaabiyada keentay inay toobad keenaan ilaahooda u soo noqdaan oo mataqaana dadkan ay gaalaysiinayaan iyo murankan madhalayska ah ay ummadda ku hayaan ka daayaan oo dadka sidii wax loo bari lahaa diintooda loo fahansiin lahaa waa risaalad weyn baa inoo taalla maanta adduunka oo dhan muslimku marti u yahay islaamka qiimuhu leeyahay hadday wallaahi gaaladu ogaan lahayd maanta ma ogee badidoodu ma oga hadday ogaan lahaayeen wallahi inaan midhka kristan ka ahaadeen kulligood way muslimi lahayn laakiin waa ay ciddii u sheegi lahayd af ingiriisi wadaadku ma yaqaano af faransiis ma yaqaano af ruush ma yaqaano af uu yaqaanaaba ma jiro in yaroo carabi oo halkan nacaamadu ka soo bartuu la badhabadhabadhayo dadka ku tawqiiraya oo maanta o dhan dadka ku haysa ayuu adduun iyo lacag iyo wax ka helaya uu soo marantaa rasiq master risiq ya kitaabkii ilaahay mataqaana iyo diinta ilaahay ka dhiganaya waxaa loo baahan yahay dhalinyaro mutacalimiina oo sayniska barata oo diinta barata dhalinyaro mutacalimiina oo dhaqaalaha barata oo diinta barata dhalinyaro mutacalimiina soo garamaysid oo injineerinka barata oo diintana barata oo markay baxaanay dadka kale u tagaan diintii ilaahay dadka u sheegi kara oo ka dhaadhicin kara waa la soo wada muslimi laha waayo wax maanta xataa intaa gaaladu maanta haystaa ma jirto arrin ay nagaga sarrayso oo muslimka laga qaadanay أئمدي ووينيد عالم الإسلامي صوم برتين نكري وهابي كوبتشرين أما محان راي منهج كقادري أي بحال كقادري عقيدة دايرة كوبانة أحمد بن حنبل وقاطي قادري متشرين يا ابن سينا كمذا وحوارنا نختار وين سوكر نشعري وها وهابي مو هين أشعري ذو ضد كان العقل كان استعماله وهابي ذو حيكون هذا عقل هو عقلاني نكان صدوق لو عقلاني قال باطل وكذا عقلاني هو معي وأنا عقل كفكرة diintuna waxay ku leedahay aqal boqol aayadood baa quraanka ku jira oo kula aqliga liqoomin yaqilun liqoomin yatafakkarun liqoom waxaasoo dhan oo aqliga amaanay iyagu kiibay ku leeyihiin aqlaani ninkaas waa aqlaana haddaad wax u sheegto ma aha diinta ma aha waa gaal waa kaanaba waa gaal marka waxaa loo baahan yahay in maxaan ku rahay taa laga baxo oo markaa la qaato maxaan ku rahday taa aynu sheegayno in diintiina loo soo noqdo kitaabkii ilaahay loo soo noqdo ummadda islaamkuna weyn ummadda caalamkuna weyn soo yahay wax la barto